السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هنا إلهي بقى مهبله سبحانه وتعالى. إلهي وحن كبري إلهي يركاي نجولا بدباديو وعن همبليو دري يا فاطمة ولا يا همبليو لما عم ذلك حفلتك السوقيف قليل ذلك قبقابينا وحلا يا همبليو ما أنت واحد شراء ذلكينو وحروب هي إنهم يلنا برلمان iyo dawladda hoose oo loo wada leeyahay oo rag iyo dumar bay ka muuqdaan ayaa loo baahan yahay sida awgeed waxaanu saddex xusbi ku heshiiyeen in 18 dumar ah la sharaxaa gobolkiiba saddex hablood laga sharaxaa maadaama aan constitution-keenu aanu kooto ogoleen hablaha la empower gareeyaa lala kaabin gareeyaa marka si ay iska markaa iyagana waxaan ku heshiinay in dadka laga tira badan yahay iyagana saddex qof laga sharaxaa oo maadaama ay magaalooyinka ku kala badan yihiin saddex magaalo ugu badan yihiin in mid qof laga sharaxaa oo xisbi hal qof isku taga si aanay codkoodu u qaybsamin oo qofka hargeysa laga sharaxa burco ay isku tagaan gabooyo dhan isku tagaan codkooda halka qof halka marka waxa ka muuqanaysa hadii la yiraahdo in baarlamaan loo leeyahay haween iyo dumar iyo dadkii laga tira badan ku jiraan yaalana doonaa insha Allah isla marka waxa la sameeyay shuruudaanu sameynay kii qaranku ay jireen shuruudo qaranku qaar xusbina waa la sameeyay oo saddex xusbi ay ka noqonayaan isku mid ucid annaga soo kunay khamiistii markaan shirnay baan u qaybinay shuruudahan sameynay oo la soo darsa wixii ku darasana ku dara wixii ka saarna ka saar marka waxa la doonayaa insha Allah taala in dad xilkasa oo waxa loo dhiibay tay mas'uuliyad garanaya oo galaya shacbiga in loo xisaabtamayo aakhirada la xisaabtamayo in goriyaasha loo yimaadaan maanta waa aragtaano dawladda hoose noo shaqeyn maayo magaalooyinka gudaafad baan dhex fadhinaa baarlamaankii qarankii loo jeeyo hogolihii qaranka hadda waxaanu bixinay golaha aafada ayaanu bixinay doorashada cadow badan bay yeelatay dad badan oo marka hore isqarinayay oo indusha inooga eekaa ayaa hadda markii saddex xusbi heshiiyeen doorasho lagu heshiiyey ay marada iska qaadeen iyo ku andacoonaya saama qaybsi arrintooda saama qaybsi way ka weyntay waa curyaamis inay Soomaaliya socon waxay ogyihiin billahi ta'ala markii doorashadaasi noo dhacdo inaynu adduunku ay wax weyn aan ka helno oo ay soo dhaweynayso himiladeyna ahayd doonistaaga iyo ictiraafka tiiba la doonayaa in la hor joogsado waxa la doonayaa wixii xabad la naga qaadi waayay in propaganda la naga qaado waxay ku noolyihiin dadkaasi waxay ku noolyihiin khilaafka dhexdeena iyo qabyaalada dhexdeena oxygen-tooda waqtaas oxygen-toodu si aan oxygen-tooda u yareeno oo ay jino taas waxaan keenay inaanu maadaama madaxweynaha hadda jooga yahay madaxweyne madax adag أنا ستيل الموج وحكي أنا قوني كعسديل الموج يعني إنا نكفر فرنا دور شلا وبسول الدنيا أن يلا سي دور شلا نقول على تاسان كوش قيناي تين ميل في عمل كمرنا ده حلنا هاي فاضمنا هول بدأ بينه تعالى دومر كينا أدمر دليلا دومر تي في كارلا ميديا oo Soomaaliyeed oo qabyaalku hadda ku weyn ugu badan in dadka bidaysa qabyaaladu iskuul ma samayso passport ma samayso waddo ma samayso wajahan in dadka ka saarta qabyaalada oo Yurub baa tagteen Mareykan baa tagteen wax wanaagsan ee dalkeena wanaagsan ka soo qaadataan oo dalkeena ku isticmaashaan oo ka baxdaan yaanu idin hogaamin qof aan iskuul gelin aan dibad tagin oo qabiil u garanaya waa idinku hogaamisaan
dadka mutacalimiinta way dadka hogaamiye maayo inay hogaamiyo nin culamad yar qaatay oo yidhi caaqil baan ahay oon caqli caaqilna lahayn waxa la isku hayna aan garina siyaasadda geeska garamaayo taa adduunka lama socdo reer hebel baa muuqata marka waxaan leenahay jamca isqabsada ucid ha noqoto roor modhol dadka ay kusoo hegtaan maanta waxaan idiin sheegayaa ilaahay nagu asture reer somaliland rajadeedu waxay saareen ucid ee saareen ucid baa hadda dabeyshu xaggeeda weeye maanta way arkeen inaan qabyaalin soconeyn maanta ay tahay wali wax qabanaya yaa dalka isku hayn kara yaa dadka midayn kara yaa cadowga is hortaagi kara intiina ucid bay ka muuqataa ilaahayna fashalinna ilaahayna ma fashil subxaana watacaala dadka mideeya dadka inaan rajadooda aynu ka dhabayno haddii alayna saasaan ku salaamayaa faadume iyo qeyrkeedna waan salaamayaa dumar baa la isku dhaafay haddana habareertay keeni dumar baa la dhaafay kacad dumarka xudow واد ما صرت فيصل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته